isla arooskeedii ayaa lagu dalaaqay saddexdaada dalaaqo ayaad iga qabtaa arooskii iyo sidoo kale farxaddii aan wada qaadanaynana waa aan ka baxay ayaa hal mar ka dhacday. waa qiso la yaab leh oo ka dhacday magaalada muqdisho. gabadha idinkaga muuqata halkan ee dhaasaysa islamarkaana dheelaysa ee ku horniikinaysa 15 nin ee ka dambaysa ayaa la furay habeenkeedii arooska islamarkaana la yiri adeer anigu wixii waa aan ka baxay arooskii iyo sidoo kale qarashkii iga baxana waxaan ka soo qaadayaa meel cidla ah islamarkaana qof qasaaray oo kale ayaan iska soo qaadayaa balse adiga guri kuma geysanayo. 15 nin ayay ku horniikinaysaa gabadhani sida idinkaga muuqata halkan waana arooskii Soomaali ugu foolxumay oo abid dhaca. halkan waxaa ka muuqda oo nimanka niikinaya ku jira gabadhii ninkii guursa lahay ee caruuska ahay. sidee wax isku bedeleen maadaama uu raalli ka ahay asagu inuu la niikiyo maxaa sababay inuu gabadha ku dhex dalaaqo gudaha arooska islamarkaana dadkii uu arkayo oo dhan uu yiraahdo saddexdaada dalaaqo ayaad iga qabtaa. sida aad arkaysaan gabadhu uma niikinayso sida qof normal ah oo gabdhaha kale ee Soomaalida markay arooska dhigtaan qaabka ay u niikiyaan gabadhu ma aha. islamarkaana waxa ay ka bedeleen wax badan waxaana sidoo kale qaraacantay oo arooskii hal mar la kala dilaaciyay caloosha maamada dhashay wiilka islamarkaana wiilkeedii ku bixisay lacag badan si uu u helo gabar oo guursado balse habeenkii ay arooska ka soo qayb galaysay loo keenay gabar fadaro ah islamarkaana sidaasi nimanka horteeda ugu niikinaysa. furuq ha ku dilay tanu iisii fadhi mayse ayay tiri maamadii arooska islamarkaana dhashay wiilka oo halkan arooska qarashka intii ugu badan dhiibtay. gabadha sida halkan idinkaga muuqata mar kale waxay aad arkaysaan waxa uu heesayaa fanaanka lagu magacaabo Cali Saki. ninkii guursanayay hal mar ma fiirinayso oo fanaanka ayay ku maqan tahay sida aad aragtaan. si toos ah ay fanaanka indhaha uga qaadi laadahay wiilkuna waa uu murugaysan yahay markaan oo wax badan ayaa bedelan balse hal mar ayay maamadu ku soo dhici doontaa waxa ina dhihi doontaa furuq ku diliye ha iga tagta tanu aroosna u dhigan maayo qasaarihii iyo lacagtii iga baxdana meel cidla ayaan ka soo qaadi doonaa. sida aad aragtaan gabadhu aad ayay u kacsan tahay islamarkaana inay niikido ayay go'aan ku soo gaartay. sidoo kale markii lagu leeyahay gabdhaha garoobada waxa ay u badan yihiin kuwa nolol soo maray oo haddii aroos dambe aad u dhigto ku wareeri doona mahmaayada Soomaaliyeed ama sidoo kale dadka waxgaradka ah ee odayaasha ah ayaa sidaas yiraahda. gabadhani waxa ay ahayd gabar garoob ah oo horay u soo dhashay 2 cunug islamarkaana wiilkan dhalinyarada ah guursanaysay balse fadaro ceeb fadeexad ayaa ka dhacday habeenkii arooska waxaana qof walba ay ka carartay arooskii. dadka halkan idinkaga muuqda hal mar ayay amakaag afka qabsadeen waxa ayna u badnaayeen arooska wiilka dhankiisa islamarkaana gabadha dad yar ayaa soo galbiyay oo ayada xaggeeda ah islamarkaana familkeeda balse dadka inta ugu badan ee arooska ka soo qayb galay waxa ay ahaayeen familka wiilka. islamarkaasi markii gabadhu ay bilowday inay niikido islamarkaana ay 15 nin hortooda ku niikido qof walba waa ay sii jeesatay qof tiraahda gabadha barta ha lagu dalaaqo oo ugu dambeyn go'aankaasi ayaa la qaatay balse qof tiraahda meesha ha lagu dalaaqo iyo qof yiraahda war gabadha halkan yaa lagu furine gurgeedii aan geyno kadibna aan cideedii u celino balse arinta la yaab kale ee qof walba la argagaxday ayay ahayd gabadha markii hore saan u faraxsaneed in hal mar jadwalkeedii isbedelay islamarkaana wiilkana uu ku dhex dalaaqay arooska. sidee wax u dhaceen waxaan ku faahfaahin doonaa sababta keentay in arooska wiilka gabadha markii hore ku faraxsanay nimanka markii ay niikanaysana hortaagnay oo isagu raallida ka ahay oo markii dambe furo maama Safiyo oo ah maamada dhashay wiilka ayaa hal mar soo booday waxa ayna tiri furuq ku diliye wariya iska fur gabadhan oo meesha naga keen aan ka cararnay intaan nagula sawirin waxaan fadarada ah. wiilkii ayaa ugu dambeyn go'aankii qaatay waxa uu halkan ku dalaaqi doonaa gabadhan oo lagu magacaabo Saadiyo islamarkaana saska waalida ah la soo gashay arooska ugu dambeyntiina la qaatay maama Safiyo warkeeda oo ah lagu dalaaqo goobta ay ku niikinayso tani guri ima tagayso gurina ima geenaysid fadaradan iga horwad. wiilkii ayaa hal mar jadwalkiisii dhinac walbo ayay noloshu isaga soo cakirantay balse markii ugu dambeysay waxa uu go'aan ku gaaray inuu furo gabadhan.
halkan waxaa taagan haddii aan sheekada dib inkugu laabto wiilka caruuska ah ee gabadhan guursanaya nimankan suudadka wata mid ka mid ahna waaye waana midkan dhinaca ka taagan ee kaamiradu si toos ah u soo qabanayso. haddaba wiilkani waa uu argagaxsan yahay inta uu meesha taagan yahay, waxa uu isleeyahay war meesha ma ka carartaa, gabadha qaabkeed wax ugu sheegtaa. dhowr jeer oo kale ayay muuqaalka sidoo kale kasoo muuqanaysaa gabadha oo wiilku wax uu sheegaya dhegta, isla markaana uu leeyahay isdeji. balse gabadhu go'aan ayay ku gaartay inay hees raab ah shidato, isla markaana intaani oo nin oo aad u jeedaan hortooda ay ku niikido. subxaanallah, sida aad arkaysaan waa ay niikinaysaa, xagga ayay barida u tuure, gacanta ayay xagga u tuure, wiilashii ayay dabada si xun ugu ruuxaysaa. subxaanallah, waxa uu ahay muuqaal argagax iyo la yaab leh, isla markaana ka argagixiyay maama Safiyo oo dhashay wiilka. markii hore halkaasi ayay ka daawanaysay maamada dhashay wiilka gabadhan guursanaya, balse waxa ay hal mar ku soo baraarugtay markii ay aragtay ay ku laqlaqayaasatay ama sidoo kale ay ku lalabootay gabadhu waxa ay sameynayso ay hal mar ku soo dhaxdhacday dadkan. waxa ayna tiri fur gabadhan. wiilkii ayaana halkaasi ku dalaaqay oo gabadhii halkaasi ayaa looga tegay. sidoo kale gabadha halkan idinkaga muuqata ee iyaduna caruusada ah ee halkan ka niikinaysa, nin ayaa soo guursaday, hoolkii lacagta ayuu shubay, halkan ayuu ku soo qarash gareeyay, balse daalim ayuu ahay ninkii gabadhan guursaday. sida aad u jeedaan gabadhu waa ay qaawan tahay, tintii ayay sii deyday. Soomaalidu inta badan wanaagga isma farto, balse qofka wax kuu sheegaa waa qof walaalka ah ama wanaaggaaga jecel. hadda gabadha halkan idinkaga muuqata aan wax ka sheegno waa gabar sharaf leh, ninkeedii ayay ag taagan tahay. sida aad arkaysaan ninkuna waa uu iska faraxsan yahay, si toosa oo qurux badan ayay arooskan u dhigteen. halkan fiiri, jawi degan ayay isaga jiraan. gabadhu waa ay degan tahay, waa ay dhoolla cadaynaysaa, ma aha qof waalan oo arooskii ka niikinaya. oo sida aad aragteenba furuqdishi hadda ay idin tusayo muuqaalka tusaalaha ugu soo qaadano oo kale ahayd gabadhan oo kale ha lagu daydo. gabadhanna maasha Allah la yiraahdo waa gabar wanaagsan oo si fiican u dhigatay arooskeedii, ama garoob ha ahaato ama gabar ha ahaato. mana ahan gabadhu inay waalato inay garoob tahay kuma xirna, oo qof walba mar walba dhaqankiisa ayay ku xiran tahay. balse hambaliyo saxa ayaan u diraya wiilkan iyo gabadhan halkan idinkaga muuqda ee farxadaasi wada qaadanaya, ee sida degan u jaasaya, ee quruxda badan. familkaasi guuleysta ayaan leeyahay, balse iska ilaaliya wasaqdan. fiiri, waa ay xamaasad balaayo ayaa arooski dadka hortoodii hayda. wiilka ayuu ku soo boodaysa, isdaji ayuu leeyahay, qoorta ayuu ka dharbaaxayaa, madaxa ayuu ka shuminaya. wuxuu leeyahay maxaa u waalanaysaa saskan waalida ama ka deeyid. haddaba saaxiibayaal, ilaa inta inala soo gaartay subscribe share channelkan Xodaal Media. mahadsanid.